واتحنهني حكمتها waa channel like sar subscribe na ku dhufo kambalka afro soo ku soo gaadha muuqaal kasta assalaamu calaykum nin ayaa wax ku adkaaday quraanka inta kadib gabadhiisa ayaa ku tiri hadii aad quraanka ku xiftid sanad waxaan ku guurinayaa gabadh labaad sidee inta uu dadaalay ayaa wax ku xiftay quraanka dhamaaba 6 bilood waxay sameeyeen inta garan weeday ay 3 casho soontay nin ayaa waxa ku yiri maanta adiga kuma garanay ee dameerkaaga ayaan gartay wuxuu ku jawaabay dameeruhu iyaga iskarta nin oday ayaa ku yiri nin kale alaabtani qaad bilaa lacag waxaan ku siinayaa talooyin yaani naseexooyin haddaba ninkii alaabti waa uu qaaday markay meeshii 3 meelood meel ay socdeen ayaa ku yiri soo daa ta koobaad waxaanu ku yiri qofka kugu dhaha gaajada ayaa ka fadli badan dhirigta waxa ku tiraahdaa waa beenta haddaba markii labaad markay socdeen 3 meelood laba meelood ayaa ku yiri soo daa naseexada labaad waxaanu ku yiri qofka kugu dhaha marka wax la fuulo ayaa waxay ka khayr badan tahay marka la soconayo ee la lugeynayo ku dheh waa runta haddaba markay meeshii gaareen ayaa ku yiri soo daa naseexada saddexaad waxaanu ku yiri hadduu qof kugu dhaho waxa jira xamaale adiga ka raqiisan yaani xamaale adiga ka bilaashsan waxa ku tiraahdaa waa beenta ninkii waa u yaabay waxaanu yiri ma waxan baa talooyina sida way ku kala tageen ayaa nin u yimi caanaha iyo biyaha isku dara say u bataan waxaanu ku yiri war hoo labadan weel igu shub caanaha waxaanu ku yiri maxaad ku faysaa labada weel waxa ku yiri midna caanaha igu shub midna biyaha yaani ila kolba biyaha iyo caanaha soo kay daraysaaye nabi ciise ayaa la weydiiyay calayhi salaam dadkii ugu laandheeraysan wuxuu ku jawaabay kooda waa la cabsiga badan leh waxa la yiri 3 nin oo bakhiilin ayaa tashaday kadib markii ay la yaabeen deegaankoodii haddaba waxay dhaheen midkood baa wuxuu yiri anigu waxaan jeexayaa goobaabo hanti cirkan u tuuraya wixii ku dhaca aniga leh wixii hareeraha ka dhaafana waxa leh masaakiinta haddaba kii labaad baa yiri anigu waxaan jeexayaa xariiq noocaas oo kala yaani xisab koorado kala wixii dhinaca bidix ka dhaafa aniga leh wixii dhinaca bidix ku dhacana waxa leh masaakiinta kii saddexaad baa yiri anigu hantida cirkan u tuuraya wixii hawada ku hadha masaakiinta leh wixii dhulka ku dhacana aniga leh subxaana man khalaqakum nin ayaa soo raacay soo daba galay rag ku socda madaxweynaha si ay u soo tiriyaan gabay waxa uu moodayay inay ku socdaan allabari soo allabariga ula soo dilo laakiin soo rag waxay ku socdeen madaxweynaha haddaba nin kasta waa uu gabiyay ilaa la soo gaarayay isagii waxaan la yiri gabay wuxuu yiri gabay anigu ma hayo mana aqaano waxaan la yiri hadda xagga ku socotay wuxuu yiri waxaan ahay kuwa quraanku sheegay ee ilaahay yiri والشعراء يتبعونهم الغاوون يعني كويس كراعية يسود بقلية نين بخيل يا سيبسي سنحي وحان كوني كسيبسي وحي ققر وحول المحان كوقرا وحوري يققر كيكو عنتيام وحكونا فليس منا كل جنا وحاو كقري قفك بيكشفتا أما كعبة فليس منا يعني نقام بدها هل هو قاري بخيل نمو نين حويقانا يا سرع عدن وحان ولا شاكستن نكي دون توتي waxaanu ku yiri ninkii doonta watay war ma taqaana naxwaha waxaanu ku yiri ma aqaano wuxuu yiri cimrigaagii waxa tii kala badh haddaba ninkii doonta watay wuxuu weydiiyay su'aal adigu ma taqaana sida loo dabaasho way doonta wajicsantahay wuxuu ku jawaabay maya wuxuu ugu jawaabay cimrigaagii oo dhan ayaa tagay yaani hadda hadii doontu dhacdo adigu waad dhimanaysaa si anigu waan dabaalanayaa